الله وبركاته ورحمة الله وبركاته هذا لا مغلو waxaan rajeynayaa inaan la maqlo oo codkuna inuu waadix yahay ayaan rajeynayaa kulley internetkan ka soo hadlaya waa inter cusub marka insha allahu inuu codku uu waadix u yahay ayaan anu malaynaya marka intaas ka gadaal maanta caawadan insha allahu hadduu ilaahay inoo idmo waxaynu geli doonaa kitaabkii furitaanka iyo axkaamtiisa fiqhiga ah kitaabkii furitaanka iyo axkaamtiisa fiqhiga ah ayaynu geli doonaa hadduu ilaahay subxaanahu watacaala uu inoo idmo kitaabkaasina taban waa kitaabkii dadweynaha qolka ay codsadeen marka insha allah subxaanahu watacaala aawadan ayuu inoo bilaabmi doonaa casharkii koobaad ee kitaabka ku saabsanaa waxaan rajeynaynaa inu dul marno masaa-isha fiqiga ku saabsan waxa ay shareecada islaamku ka qabto ay diintu ka qabto oo ilaahayna ka qabo ay sunnadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam ay ka sheegayso aynu dul marno masalad kastana inaynu faafino aynu macnaha bayaamino waxa macnaha iyo ujeedada ay shareecadu ay ka leedahay marka insha Allah subhanahu wa ta'ala maantadan ayuu inoo bilaabin doonaa kitaabkaas maalina sida aan sheegay wuxuu noqon doonaa kitaabkii fiqiga maalina kitaabkan macnaha furitaanka ku saabsan ee fiqiga ka hadlaya maalina waxay noqon doontaa tafsiirkii oo waxaynu ka bilaabin doona suuratu al-baqara maduu ilaahi subhanahu wa ta'ala inoo idmo sidaynu labada khayr aynu sukeeno fiqiga iyo tafsiirka labadaba aynu qolka aynu ka wadno waxaan rajeynayaa markasta insha Allah subhanahu wa ta'ala inuu waqtigu uu noqdo haduu ilaahi inoo asmaxo waqtigan oo kale iyo wax in yar ka dambeeyo waqtigaas oo kale caamatan waqtigan hadda oo kale waa waqti fiican aniga uu fiican yahay anu meeshan waa yani 3 saacadood baan idinka horeeyaa saan maleynayo waa iska 10kii xagayga laakiin waxaan rajeynayaa inay macnaha waqtigan oo kale xoogay in waqti ka dambeeyo kolba sida loo haleelo ayaa noqon doonta insha Allah subhanahu wa ta'ala marka waynu gali doonaa casharkeena haduu ilaahi subhanahu wa ta'ala inoo idmo بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على صفي من خلقه وخليله وبعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلهي سبحانه وتعالى في يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما طيب marka waxaynu gali doonaa haduu ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo idmo waxaynu galaynaa macnaha uu talaaq uu leeyahay macnaha uu talaaq uu leeyahay ayaynu gali doonaa macnihiisa ayaynu gali doonaa macnuhuna wuxuu ka hadlayaa xagga luqadda carabta iyo xagga shariicada islaamka waxa lagu macneeyo furitaanka taban luqadda carabta waxay ku macneysaa furitaanka umuuro badan taban insaanku haduu yiraaho talaqtu albilada id faraqtuha bimaana waan furay dalkii aan joogay waan ka tagay bimaana anoo dal baan joogay dal baan deganaa marka hore dalkii waan furay wuxuu uga jeedaa dalkii waan furay maxay yani dalkii aan deganaa baan ka tagay waa insaan degan Yurub oo kale
wuxuu ku leeyahay dalkii aan deganaa baan furay muxuu uga jeedaa dalka miyuu guursaday waa maya wuxuu uga jeedaa dalka waan deganaa waan furay bimacnaa waan ka tegey meeshii aan deganaa ama dadkii aan la deganaa ayaan ka tegey saas ayay macnuhu carabta u macnaysaa wa kadalika mararka qaarkood macnaha waxa geela oo kale marka ay xariga ku xiran tahay oo kale marka xariga lagu xiro geel oo kale la jiidayo markaas oo kale waxa la yiraahdaa wataaliqu min al-ibil bimacnaa geelaha aan xarkaha lagu xirin oo la jiidan bimacnaa geela iska socda oo xuriyadiisa ku socda oo xarigna ku xirnayn kaasoo kalena waa geela furan oo kale ayaa looga jeedaa oo bimacnaa ma xidhna kadalika berigii nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxaa jiray adoomo la xirxiro iyo adoomo aan la xirxiri jirin marka kuwaasoo kalena markaana xidhnayn waa iska xuriyadoodii bay wataan bimacnaa furitaanka inta badani wuxuu ka hadlayaa horta insaankii uu meeshii uu deganaa uu ka tegey ama shaygii uu sameynayay uu ka tegey ama macnaha xarigii uu ku xirnaayo oo laga sii daayey ama xorriyadiisii oo la siiyey oo bimacnaa la yidhi xor baa tahay macnaha iska tag ama qofkii oo la sii daayey calaa kullin macnayaashan oo dhan marka lasoo koobo yacni furitaanku wuxuu macno leeyahay xagga luqadda carabta waa shaygii oo xidhnaa marka hore oo xarigii laga sii daayey maa la fahmay marka intan oo dhan lasoo koobo waxa weeyaan xarigii shay macnaha xidhan marka hore oo bacdeen xarigii laga furfuray oo lasii daayey leanno marka hore guurku labada qof buu isku xirxidhaya soo maaha marka hore guurku labada qof ayuu isku xirxidhaya walidaalika ilaahay wuxuu yidhi wa miithaaqan khaliida bimacnaa guurka wuxuu ka dhigay ballan weyn ballan daran ayuu ka dhigay subxaanahu watacaala marka la fahmaya saasi guurku wuxuu yahay shay labada qof isku xidhaya marka hore marka labada qofna ay kala tagaan oo ninku uu gabadha furo markaasoo kale isna xorriyadiisii buu helay iyaduna xorriyadeedii bay heshay bimacnaa xarigii dhexda ku jiray labadaba isku xidhiirinayay ayaa go-ay maa la fahmay marka furitaanku wuxuu macno leeyahay xagga luqadda carabta waxaan rajaynayaa inay yani waadax tahay jimlada hadda in inagu aynu ka hadlaynay bimacnaa saasoo kale ayaa loo fahmaya arrintaa hadda aan anigu sheegayo bimacnaa waxa weeyaan insaanku inuu fahmo kelimadan hadda aynu ka hadlayno bimacnaa xiriirkii ka dhexeeyey ninka iyo haweenta ayaa kala go-ay oo mid kastana markaasoo kale xorriyadiisii ayuu helay oo macnaha ayay kala tegeen marka shariicaddana u dhaqaaqno furitaanku wuxuu maana leeyahay طبعا مذاهبته oo dhan mid kasta taariif gaar ayuu leeyahay oo macnaha si gaar ah ayuu u macnaynaya xagga shariicada waxa uu yahay furitaanku laakiin marka aynu madaahibta oo dhan isku soo ururinno waynu macnihii yani keenno macnaha yani shariicada isu keenaya waxa weeyaan xillu caqdi النكاح بلفظ الطلاق ونحوه بمعنى xallu waxaa looga jeedaa waa la furfurayaa guurkii baa la furfurayaa waa xiriirkii labada qof ka dhexeeyey ayaa la kala goynayaa bilafdi talaaqi waxaa looga jeedaa afka laga sheegaya arintii furitaanka afka ayaa laga sheegaya arintii furitaanka bimacnaa qofku hadduu ku yidhaaho haweentiisii waad iga furan tahay markaasoo kale wuu furay gabadhii oo xiriirkii ka dhexeeyey iyo guurkii ka dhexeeyey ayuu kala jaray markuu ku yidhaaho waad iga furan tahay kaasi waa lafdigii talaaqa ama erigii talaaqa oo lagu dhawaaqayo oo afka laga sheegayay iyo wixii la dhigma mararka qaarkood waxaad odhanaysaa haddaad gurigii hooyadaa tegtid waad iga furantay gurigii waxaad ku xidhay macnaha arrin baad ku xidhay ood ku callaqday oo tiri furitaankaa wuu dhici doonaa haddaad gurigii hooyadaa gashid ما la fahmayaan waxaan ka hadlayo idan culimadu waxay noo sheegayaan furitaanka wuxuu macnaynaya xagga shariicada waa xiriirkii guurka ee ka dhaxeeyay ninka iyo haweenta oo la kala jarayo oo lagu kala jarayo lafdigii talaaqa ama wax la dhigma lafdigii talaaqa yani erigii talaaqa oo lagu dhawaaqayo wax la dhigma ama talaaqa laftirkiisa oo la sheego oo la yiraahdo waad iga furan tahay leeno mararka qaarkood insaanku kelimad buu odhanaya kelimada waxa la weydiin karaa maxaad uga jeedaa لأنه كلمات قاركود فريتان كم معنيان هدوك يراها أرد دقاق كلمة دلاغة ما صمة هدوك يراها أرد دقاق ما كلمة دلاغة ومايا سيدين أفهمتان كلمة داسو كلمة دلاغة ما لكن مراك قاركود نينكا أيا أوجهدا إيقاه دقاق وافريتان ما لفهمي يعني نيدي سيساقا وحي تهي أرد دقاق يعني وانكو فري ayuu ujeeda marka kelimadaha qaarkood waa la dul istaagaya ninka la weydiinaya markaad leedahay iga hor dhaqaaq ama iga tag ama guriga aabaha tag maxaad uga jeedaa ilaa kelimadaasi kelimada furitaan ma markuu ku yiraahdo guriga aabaha hor tag soo ma lay fahmayaan waxaan doonayaa inaan idin basiidiyo
kalimaadka waxay idin sheegayaan iyo waxay macno leeyihin marka shariicadda furitaanku wuxuu sheegayaa waa xadhigii ka dhexeeyey ninka iyo gabadha xadhigaasina waxa weeyaan guurkii oo la kala jaray maxaa lagu kala jaray waa la kala gooyey waxaa lagu kala gooyey erigii talaaqa uu qofku afka ka sheegay uu ku yidhi waad iga furan tahay ama eri la dhigma erigaa uu sheegayo marka eryaha qaarkood waa iska waadax oo furitaan baa looga jeedaa eryaha qaarkoodna furitaan ma ahane laakiin ninkaa la weydiinaya maxaad uga jeedaa ninka ayaa la weydiinaya maxaad uga jeedaa niyadaadu maxay ahayd markaad kelimada sheegaysay ama markaad eriga afkaaga ka soo saaraysay waa la fahmay marka macnihii xagga luqadda iyo macnihii xagga shariicadda aynu inagu hadda sheegaynay idan calaa kullin macnaha luqadda iyo macnaha shariicadda waxay isugu imanayaan hal meel halkaa meelna waxa weeyaan inuu uu yahay xadhigii guurka ee ka dhexeeyey ninka iyo gabadha oo la kala jaray idan labadaba halkaasay isugu imanayaan oo macnahoodu uu isu dhowiyey bimacnaa labada qof waxa isku soo jiidayey isku xidhayey waa xadhigii guurka uu ilaahay keenay soo ma hadhowna xadhigaasi haddaa la gooyo idan ninkuna xor buu noqday gabadhuna xor bay noqotay markaasoo kalena ilaahay baa keenay soo ma idan mid kasta xoriyadiisii buu helay marka laga hadlayo arintaa hadda aynu sheegayno hadda oo maxay ah guurka iyo furitaanka saas oo kale ayaa loo macnaynaya talaaqu haddaba hadda su-aal baa imanaysa oo sheegaysa oo leh furitaankan hadda aynu inagu ka hadlaynaa ma ilaahay baa sharciyeeyey mise ilaahay muu sharciyeyn marka waxaan leenahay inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu sharciyeeyey furitaanka liannahu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلهي سبحانه وتعالى آيادا وحو إنو شيغيا وحو إنو تلماميا فريتانكو إنو يهي لباتشير بمعنى إنسان كننكا قبضا قبا وحل السيي laba goor inuu haweentiisa u furo labada goorna waxa weeyaan furitaankii yara ilaa furitaanku waa laba qaybood waxa weeyaan furitaan weyn iyo furitaan yar furitaanka yari waxa weeyaan waa ka labada dalqadood ah furitaanka weynina waa ka saddexda ah iyadoo ninkii kuma noqon karto ilaa ay nin kale guursato waa la fahmaya waxaan anigu ka hadlayo waxaan malaynayaa codkuna waa waadix marka waxaan leeyahay iyada furitaanka yari waxa weeyaan waa laba dalqadood furitaanka weyna waa saddex hadduu ninku ku furo waad ninka macnaha kuma noqon kartid ilaa markaad nin kale aad guursatid laakiin markuu laba goor ku furo xaq buu u leeyahay inuu ku soo ceshado hadduu hal mar ku furo xaq buu u leeyahay inuu haweentiisii uu soo ceshado marka ayadaasi waxay inoo sheegaysaa tirada qofka uu ku furi karo haweentuu qabay ama gabadhii uu qabay ilaahina subxaanahu watacaala aayadda kalena wuxuu yidhi يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن بمعنى وحوليه إلهي جل وعلا النبي والله الله هي أمديسة اللي وحي النبي كسو دقي isaga gaar ahaan ugumay soo degin inaga way nagu soo degeen sallallahu alayhi wasallam idan aayad kasta oo nabigii ku soo degtay inaga inagu socotaa samaha waa la fahmaya marka ilaahay wuxuu leeyahay ya ayuha nabiyyu nabigi wuu la hadlaya idha talaqtum nisaa hadaydan haweenihina furtaan fatalliquhunna li'iddatihinna macnaha waxaad ku furtaan haweenta iyadiyo daahira ay ha furin haweenta iyadiyo dhiig adada qabta ما لفهمه waxaan ka hadlayo yani ninka inuu haweentiisa furo iyadiyo dhiig caadada qabta ma ahan waxaa loo baahan yahay ninka inuu furo haweenta iyadiyo macnaha daahir ah markaasoo kale ayuu furaya waa la fahmaya waxaan ka hadlayo marka aayadaasi waxay inoo tilmaamaysaa wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala haweenihiina aad qabtaan hadday idin doonaysaan idin furtaan waxay idin furtaan iyadiyo daahir ah oon dhiigga caadadii qabin ayaa idin furaysaan aayadda kalena ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلهي سبحانه وتعالى دب كوركين منوصا دقين هذين هوينهين فريسان ما لم تمسوهن إذن كون صنطابا بمعنى إلهي سبحانه وتعالى وحلي حتى قفكو هدو هوين تإمك قرسة أوكالي وأنه لا أقل قنين وأنه معناها لجمع أنا معناها جماعيadii aanusan la gelin markaasoo kale waa la fahmaya waxaan ka hadlayo wuxuu u leeyahay xaq inuu haweentiisii u furo
waa la fahmaya arrintaasan ka hadlayo axaadiista ee nabigeennii sala allahu calayhi wasalam ee ku soo ururtay axaadiista nabigeennii sala allahu calayhi wasalam ee ku soo ururtay furitaanka ayaynu ka hadlaynaa nabigeennii sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey dabcan axaadiis inta u badan waa iska daciif laakiin axaadiis baa jirta saxiixa oo nebigii laga wariyey oo sheegaysa macnaha xalaasha ilaahay subxaanahu watacaala aanusan jeclayn waxaa ka mid ah furitaanka xadiis noocaas oo kale ayaa jira iyo xadiis kale oo nabigeennii sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay macnaha saddex arrimood kaftankooduna wuxuu noqonayaa ثلاث جدهن جد بويري معناها كفتن كودنا وحو نقنيا أيضا شيء معناها جرة وحا كهضلي جوركا هي فريتانكا هي وحو كهضلي وحا عتاق الله يقانو ثلاث بويري جدهن جد بمعنى قفكم مركا قاركود إنسانكو وكفتميا مركا قاركودنا إنسانكو ما kaftamayo marka hadduu kaftamo iyo haddaanusan kaftamin furitaanka laguma ciyaaro furitaanku ciyaar ma galo kaftankiisa iyo macnaha runtiisuba labaduba waa isku mid xagga ilaahay subxaanahu watacaala waa shay jira ma la fahmaya waxaan ka hadlay bimacnaa guurka inuu insaanku ku kaftamo yidhaho anigu gabadhaydii kaftan baan ku furay ma dhici karta dee arrintaas guurku ma galo kaftan kadalika furitaanku ma galo kaftan iyo kaftan la-aan labaduba ma galaan marka guurka iyo furitaanku wax lagu kaftamo ma aha يعني mararka qaarkood waxaad arkaysaa laba nin oo maqaaxi iska fadhiya sheekada iga dhageysta waxaad arkaysaa laba nin oo maqaaxi iska fadhiya waa laba nin oo saaxiiba shaah bay wada cabayaan kanna waxa u dhalatay inan ninkana waxa u dhashay inan marka wuxuu leeyahay ninkan iyo ninkan way isla hadlayaan waxay leeyihiin ka waran inantayda haddaan ku siiyo adna inankaaga aad siisid bimacnaa labadan aan isu gurino ka waran iyagii baa maqaaxidii ku shaahinayo shaah ku cabaya arrinta noocaas oo kale kaftaan ma gasho لأنه شيء قاسي هذا لو يسكوا وافقه شيء قاسي هذا لو يسكوا وافقه غير كاسي وجره هذا يا كنا وان كسي كنا وين هو أنا أقبله تقول كوجره ما الفهم يا وحنا كهذا إذا غير كنا عصا كله كفتر ما قالوا شيء كذا أي سومال أنت بدنس كذا شيء كيسا هبل بان هبلايسي يجي موديني كفتن تاي كفتن ما قشوا أيوري نبي صلى الله عليه وسلم رون تيدا هي كفتن كيدو واسكو وضمد حق إلهي سبحانه وتعالى ورون أيوري نبي صلى الله عليه وسلم ولا فهم يا مسألة دا صد عنه شيء يوم أن كهذا كذلك حديث كأورينيو الإمام مسلم والإمام البخاري ومعناها لجورينيو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسنكو سابسني ويل كيسي ودلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن عمر وقبل يسي فري يذيو معناها فري قبل يسي يذي يوم تيجي عادة قبته مركا نبي صلى الله عليه وسلم يذي وحكيري عبد الله بن عمر أيكويري قبضة سوعلي مركا هوري قبضة واينا تذيب سوعلي سا أيكويري كدبنا واحد فريسا يذي الظاهرة يذيو سنديق عادة قبل أياد فري كرتا لكن يذي وديق عادة قبته ما فري كرتيد أيكويري نبي صلى الله عليه وسلم سببته حويا مركا وارنتا أو شيء النبي وحلدوني إن الله صدو gabadhu miyay uur leedahay mise maya leannahu dhiigan markay gabadhu ay daahir ay tahay xadiisku wuxuu leeyahay murhu falyuraajachaa waxaad ku amartaa cabdallaahi bni cumar gabadhiisa inuu soo celiyo uma liyumsikhaa kadibna inuu haysto xataa tathur ilaa intay iyadu daahir noqonayso uma uu dhiigu caadadu mar labaad uu ka imanayo uma ay daahirayso marka ay daahirto waxaa la hubsaday inaanaysan uur lahayn gabadhii markaasoo kale waad fari kartaa ayuu leeyahay nabigeennii sala allahu calayhi wasalam liannahu gabadhu hadday macnaha dhiigga caadada uu ka go-o taasi waxay inoo sheegaysaa inay uur leedahay soo lama fahmayo waxaan ka hadlayo hadduu dhiigu caadadu gabadha uu ka go-o mararka qaarkood taasi waxay sheegaysaa inay iyadii uur leedahay soo ma marka nabigeennii wuu ka taxadurayay arrintaas oo wuxuu leeyahay gabadha ha furin ilaa marka la hubsado inaanaysan macnuhu iyadii macnaha ay daahir ay tahay markaasoo kale gabadhii waad furi kartaa warqadeedii waad siin kartaa ayuu leeyahay nabigeennii sala allahu calayhi wasalam lidaalika wuxuu ku yidhi nabigeennii cabdullaahi bni cumar waxaad ku amartaa inaad gabadha soo celiso inuu gabadha uu soo celiyo ثم كدبنا إنه هيستو حتى تطهر إلى أنت ظاهر نقونيسو ثم أوديك عدد مرلبات وكيمانيو ثم أي ظاهر نقونيسو ثم أبو يدي أنت كجدال هدو دوني وفركرة هدو دوني أنا وهي سنكر أيودي نبي صلى الله عليه وسلم مركا أي أرنتو أي سدا أي تهينا أحاديثتي عديني سفرتانك هي آياته عديني فرتانك
waanu soo dulmarnay oo inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu sharcigiisii ka mid yahay arrintan furitaanka ayaynu xariijinay intaa kadib waxaynu gelaynaa xukunka uu leeyahay macnaha guurku xukunka uu leeyahay furitaanku axkaam buu yeelan karaa furitaanku idan furitaanku marka hore dabcan waa shay la karahsan yahay ayay yidhaaheen culammadu furitaanku waa shay la karahsanayay sababtu waxa weeyaan liannahu ilaahay subxaanahu watacaala adiga nimcad buu ku siiyey nimcaddu waa maxay waa guurkii soo ma waa nimcad liannahu ilaahay subxaanahu watacaala ayaa nimcadda adiga ku siiyey oo macnaha haween ku abuuray adigana ku meheriyey oo arsaaqadiina ku siiyey bimacnaa nimcadihii ilaahay oo kale baad ku kufraysaa saas awgeed waxay leeyihiin culammadu guur furitaanku waa shay la karahsan yahay ayay culammadu inoo sheegayaan mararka qaarkoodna furitaanka waxay leeyihiin culammadu 5 axkaam ayuu yeelan karaa marka hore wuxuu noqon karaa xaaraan wuxuu noqonayaa xaaraan sababtu waxa weeyaan mararka qaarkood waxaad arkaysaa ninkiiyo gabadhii iska furaya bilaa sabab buu iska furaya wuxuu leeyahy calaa kayfi baan u furaya ayuu furaya marka qaarkood culammadu waxay leeyihiin taasoo kale ee macnaha dhibaatada u geynaysa gabadhii ee caruurtiina kala luminaysa oo reerkii oo dhan dominaysa bilaa asbaab bimacnaa qofka u furaya gabadhii taasoo kale culammadu waxay inoo sheegayaan inay arrintaasi ay guur furitaanka uu qaadan karo xaaladda noocaas oo kale inuu shay xaaraama uu yahay xaalad kalena uu qaadan karaa inuu yahay shay la karahsan yahay marka uu isagu gabadhii uu furayo uu asbaab u haystaa laakiin asbaabtii mid badan ma ahane waa mid iska yar markaasoo kale xaaladda waa xaaladii furitaanka la karahsan yahay xaaladda saddexaadna waa xaalad macnaha furitaanku u bannaan yahay waa markuu haysto isagu asbaabtiisii isaga uu gabadha ku furiyay bimacnaa gabadhii hadalkiisii ma maqlayso gabadhii matalan sankay ka hadlaysaa gabadhii matalan awaamirtiisii ma fulinayso gurigii macnaha waajibkeedii kama soo baxayso asbaab weeyaan taasi waa la fahmaya waxaan ka hadlayo markaasoo kale ninku dee wuxuu ku furayaa gabadha suluugteedii iyo akhlaaqdeedii ayuu ku furayaa oo bimacnaa iyadii baan umuurtii iyo waajibaadkii lagu lahaa xagga guurka iyo qoysnimada aanka la imanayno la soo baxayn ma la fahmaya waxaan ka hadlayo marka xaaladda noocaasoo kale wuxuu noqon karaa furitaanku shay isaga u bannaan oo isagu macnaha uu dejinayo kadalika furitaanku wuxuu noqon karaa mararka qaarkood waajib wuxuu noqonayaa waajib waa goortee waa goorta maxkamadda laysla gaadho ayuu waajib noqonaya liannahu qaadigu wuxuu odhanayaa gabadha fur ama waynu kaa furi soo ma iyadii baa tagtay maxkamaddii hadday maxkamaddii gaadho qaadigii baa xukumaya soo ma markaasoo kale furitaanku wuxuu isu bedelaya waa waajib leannu iyadii baad tagtay oo dacweysay ninkii oo leedahay ninkii ha layga furo ninka ma rabo soo ma hadduu doonaya isagaa dacweynaya wuxuu leeyahy gabadhii waan furaya soo ma markaasoo kale guurka furitaanku wuxuu noqonayaa waa markuu dirirku jiro ay dhibaatada weyne ay jirto waajib buu noqonayaa labada qof dhexdooda liannahu markaasoo kale wuxuu noqonayaa inuu macnaha isagu uu gabadhii furo wakadalika uu yidhaaho ninku gabadhaydii lama galmoonayo matalan intuu dhaartay wuxuu yidhi lama galmoonayo marka waxa laleeyahy ama la galmow ama gabadha fur waa intaa soo ma taasoo kalena wuxuu noqonayaa waajib leannu galmadu waa xaqay u leenahay iyadu ninkuma manci karo soo ma marka hadduu yidhaho anigu gabadhaydii lama seexanayo waxaan leenahay 4 bilood wax ka badan aduu xaq uma lihid 4taa bilood hadday dhaafto waxaan leenahay ama gabadha fur ama gabadha la galmow ayaan leenahay bimacnaa qaadigii baa arrintaa ku xukumaya xaaladda noocaasoo kalena waxay noqonaysaa furitaanku shay waajib oo yaa ku xukumay waxaa ku xukumay qaadigii iyo shariicaddii ilaahay baa ku xukuntay wax 4 bilood in ka badan isagu xaq uma leh inuu dhaho gabadha lama galmoonayo leanna 4 bilood hadday gaadho waxaan leenahay gabadhii ama la galmow ama fur gabadha waa la fahmay idan axwaasha ku hareersan macnaha furitaanka axwaasha ku hareersan furitaanka waa la fahmay iyo axkaamtiisii طبعا شيء والبا حكمت بوليه والله شيء والبا حكمت أيوليه حكمتنا وحكمتي حق إلهي سبحانه وتعالى لأنه إلهي سبحانه وتعالى وحينو شيء وحليه حياة ذا ينولش جورك مرك أوجه الرية وحيكون اسمتها لبتير أي كل اسمتها لبضا تيري محيين لبضا تيري وحويا كالجعيلك نحريستا رحمة شعيلك إذن وحاس أوردن ومودده iyo raxmadda bimacnaa jacaylka iyo raxmadda labada arrimood ayuu macnuhu ilaahay subxaanahu watacaala uu ka leeyahay tiirka guriga iyo familiga wuxuu ku dhismaa jacaylka iyo raxmadda jacaylkuna dee kanaan ka hadlaynaa ma ahan kan filimaanta
filimaanta ma ahan inta filimkii la daawado hebel heblaayo wallahi uu jecel yahay wuu ku dhimanayaa wuu ku baktiyayaa waa sidano jacaylka noocaas oo kale ma ahan jacaylkan inagu ka hadlaynaa waa jacaylka shariicada islaamka waafaqsan waxaad arkaysaa laba haweeneed oo laba qof oo internetka ka sheekaysanaya alla waan ku jecelay alla waan ku baktiyaya alla waan kugu dhimanaya bahabaha waxaasoo dhan waa iska riwaayad weeyaan waa waqti lumis leesh laannahu waxaasi wax dhaba ma aha waxan waa khayaali bimacnaa insaankii ayaa isu khayaaliyeynaya arrinta haddaan inagu sheegayno hadduu doono intuu la sheekaysto ubax usoo tuurayaa wallaahi waa sidano maanta kumaan maqal codkaagii waxbaa igu dhahayo waan dardaranayaho wuxuu la imanayaa waxyaabo aan aqliga iyo maskaxda aslanba aan gelin ayuu marka hore isagu la imanaya marka mas'aladu ay sida ay tahay marka jacaylka iyo naxariista laga hadlaya ee guriga iyo tiirka lagu dhisaya guriga familiga islaamka lagu dhisaya waa maxay waxa weeyaan jacaylkii iyo raxmadii shariicada islaamka waafaqsana leeyahay ilaahay wuxuu yiri waja'ala baynakum wuxuudin dhaxdhigay dhaxdiina mawaddatan ورحمة جعيل iyo macnaha naxariis ayuu macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala idin dhex dhigay marka xikmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhigay arrimahaas oo kale goorta uu yimaado dirirku goortay timaado dhibaatadu goortay timaado faham la-aantu goortay timaado qayladu goortuu buuqu bato waxaa dhacaysa inay naxariistii iyo jacaylkii isu yimaadaan oo gurigii la kontaroolo ma la fahmaya waxaana ka hadlayo bimacnaa kontaroolkii guriga waxaa haysta jacaylka iyo naxariista mararka qaarkood haweentii way qaldami kartaa ninku wuu qaldami karaa codku wuu jiraa baan u malaynaya codku wuu jiraa saan u malaynaya anigu haddaanan anigu nafteyda dee la hadlayn marka mas'aladu ay sidaa ay tahay aan anigu ka hadlayo waxay tahay haweentu way qaldami kartaa ninkuna wuu qaldami karaa marka maxaa qaladkii qaadaya waa naxariista iyo jacaylkii bimacnaa anigu haddaan haweenta jecelahay waxaa dhacaysa inaan iyadii u dhaafo waxyaabo badan oon ka dhigo sidaan waxba jirin inay iyadu ii dulqaadato ay ii dhaafto waxyaabo badan saas oo kale yacni haddaynu tusaale idin siino waxaa dhacday beri ka maalina guri dhexdiisa dabcan tusaalaha cidduu ku saabsanaya inama sheegayno laakiin waxaynu ka hadlaynaa mowqifka laftiisa nin iyo gabadh waxay isu raaceen oo haweentii uu qabay lamaanihiisii suuqa ayay isu raaceen suuqa waxaan tusaalahan usoo qaadanayaa ilaahay wuxuu idin dhex dhigay maxay jacaylka iyo naxariista ayuu guriga dhex dhigay soo lama fahmayo waxaan ka hadlayo marka tusaalahaasaan usoo qaatay arrinta suuqii bay galeen haweentii waxay doonaysaa inay soo iibsato alaab yar oo guriga ku yar qurxiso alaab yar يعني سيسر ير أما وحيابها عند قرارها جوريا اللي ودي ديجو الميسس كلا صار اللي وقر حي جوريا ولا فهم يا وحنا كارد دمر كو طبعا أمورتها ويكوبك بديانا ويفهم يعني وحنا نقول شيء سما مركا يجي محيرتي محي إني قرارها سوي بسو أي جوريا كو قرحسته miiskii bay saarsaaraysaa ama meelihii katabaanadii ayay dhigdhigaysaa waa la fahmaya waxaan ka hadlayo marka way galeen alaabtii waa lasoo iibiyey ninkii baa soo iibiyey intuu raacay waa lasoo iibiyey alaabtii ninkii kadibna suuqiisii buu iska galay suuqa wuxuu galay soo shaahini shaah buu soo cabiyey wuu yimi markuu albaabka ka soo galay ayay albaabkii ka fartay haweentii uu qabay isagii waxaa dhacday inuu arkay wejigeedii uu isbedelay wartalow maxaa maanta dhacay ayuu yidhi gudigiisu iska leeyahay war maxaa maanta dhacay sawtan imika markii hore aan baxay habi bay iska hayd imikana wejigeedii baa isbedelay maxaa meesha ka jira markaasuu ku yidhi wejigaagani waa kan bedelanay maxaa dhacay madii sheegi kartaa markaasay ku tiri haweentii alaabtii aynu soo iibinay ayaa jabtay dabcan nimanka qaarkood hadduu arrintaa maqlo wuxuu leeyahay $50 baa iga galay $100 baa iga galay euro baa iga galay hayaay waa la isgelaya soo ma laakiin markuu ilaahay uu naxariista iyo jacaylka uu guriga uu dhex dhigay ninkan caqliga leh iyo xikmadda leh muxuu sameeyey wuxuu yidhi alaabtii baa jabtay dee maxaa jira maxaa dhacay waa iska caadiya hadday jabto alaabtu ma qiimay leeday almuhiim adiga wax ma noqotay ayuu ku yidhi waa maya muhiimku waa adiga maxaa naga galay alaabta markaa la soo iibinay khali weli ninka xikmadda leh ee caqliga leh ee gurigiisa ilaashanaya qoyskiisa iyo lamaanihiisa ilaashanaya wuxuu leeyahay alaabta iyo iyada keebaa qiimo badan waxaa qiimo badan iyadii marka alaabta wuxuu yidhi khali weli alaabta inaga dah maxaa inaga galay
ووحو إلهي قدر كيبا كل عي قدر كي إلهي نوحو شاقين الله تعالى سوء بيو ييني شبتو مركا نكن وانين قدر كي إلهي يما قادرتي إلهي آمن سن وانين محي عقلي يحكمت دي كشغيسينية oo isu keenaya naxariistii iyo jacaylkii oo gurigiisa macnaha ku ilaalinaya waa la fahmaya arintaasan ka hadlay marka tusaalahaas hadda aan anu idiin sheegayo waa tusaalo nolosha insaanka tusaalo maxay walaalayaal nolosha insaanka ku saabsan marka ilaahay subxaanahu watacaala halkan aan inagu ka hadlayno wuxuu inoo sheegayaa aayaddii wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala aayadihiisa waxaa ka mid ah inuu ilaahay subxaanahu watacaala nafafyaalkiina nafka abuuray oo ah lamaanihiinii sidiina idinku ugu degtaan wajacala baynakum mawadatan waraxma wuxuu idin dhexdhigay dhexdiinana mawadad iyo raxma marka aayadahaas fahma ayuu leeyahy ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo bayaaminayaa hadduu dirirku yimaado dhibaatadu ay timaado hadalku badan uu yimaado waxaa loo baahanaya markaasoo kale labadii tiir in la ilaaliyo tiirkii macnaha ahaa jacaylka iyo tiirkii ahaa naxariista marka xaaladdu ay sida ay tahay hadda aynu inagu sheegaynana waa xaalad muhiima ina macnaha arintaas la fahmo taa aynu hadda ka hadlayno كذلك إلهي سبحانه وتعالى وحي نوشيغي وحو ليهي كوي قال بريغي هوري بريغي النبي صلى الله عليه وسلم انتانو معناها اي دينتا اسلام كاني ومضيه يودن سوى قالين كواسي هوينها مركا اي عدد يدو سودو ذهي اي فرجرين لذلك دينتين وارنتا وي منعضي او وحي لهين هوينتا هفرنين معناها إلا إيذي ومعناها macnaha oon caadadii aan qabin markaasoo kale idinku waa idin furi kartaan iyadiio daahira marka kuwii jaahiliyiintu maxay samayn jireen sidaas hadda aynu inagu sheegnay ayuu macnaha uu diinteenu ay sheegtay markaasoo kale wuxuu inoo sheegayaa diinteenu inay macnaha arintaasi ay qaldan tahay waxa ay qolyaha gaaladu ay iyagu ay samayn jireen marka diinteenuna kadalika furitaanka waxay ka dhigtay laba goor oo kaliya leannahu kuwii gaaladu waxay samayn jireen furitaanka jamaal islam life muxuu yahay jamaal islam life mana garanayna okay waa la fahmaya waxaan anigu hadda aan anigu ka hadlayo okay codku waa waadax soo maha codku waa waadax masalada hadda aan anigu ka hadlaynaa waxa weeyaan kuwa qolyaha gaalada hadday doonaan 100 jeer bay furi jireen haweenta 100 jeer ayay furi jireen marka diinteenu way diiday arrinta waa maxay baashu mufatatiir baa la ciyaaraya markaad 100 jeer iyada furaysid oo soo celinaysid waa maxay ما فتاتير بقى مش اللي وياه وما مركا دينتين وين دي أرنتها سو وحي شيكتي فريتان كوني هي صدح شير هدوء بطو ولا صدح لا شير صدح لا شير كدب دي وحبط دي اللي اسكو مضح والفهم يوحانا نكاضل مركا دينتيني حكمت دا إلهي وحوسو دشي أمور تاس إنو كنترولو شريعة دا إلهي سبحانه وتعالى سودكتي كذلك حكمتها وحكم ذا فريتانك وإلهي سبحانه وتعالى هو دحدغي وحكميدا marka qaar kood waxaad arkaysaa haweentii oo qaldamaysa oo qaladkay galaysana waa maxay haday doonto yani haweenaha qaar kood kuwan ilaahay ka baqaynay kuwan shariicada ilaahay ku taxnayn diintiisa ku taxnayn ninbay la seexan kartaa taasina de shay cajaa'ib maahan waxaan anu ka hadlay ama khayaali ma waa shay jira haweena badan oo waanu maqalnay oo waynu aragnay idinku ma idan arag laakiin anu waan arkay qaar noocaas oo kala way jiraan marka waa la fahmaya waxaan anu ka hadlay marka qaar kood idan furitaanka waxa loo dhigayaa umuurta noocaas oo kale si loo manco bimaana hadday haweentu furaashka ninka xumaynayso dee waxa la leeyahay haweentani haweenaad qabi kartid maaha waa haween aad furaysid weeyaan sababtu waxa weeyaan laannahu iyadii waxay xumaynaysaa ninka sumcadiisii iyo sharaftiisii ayay meel kaga dhacaysaa كذلك وحا حكمتها فريتانك لو دغيا markay labada qof isnacib yihiin مثلا ninka iyo gabadhu way isnacib yihiin gabadhii ninka ma doonayso ninkuna gabadha ma rabo ma waxaan leenahay isla jooga waa maya taasna waxa beri kamida qolkan dhexdiisa haween kuwa nasaarada ah oo islaamka soo gashay maalin kamida waxay aniga ay weydiisay su'aal sidaan anu xusuusanahay waxay tiri shariicadeenu idinka islaamka waxay sheegaysaa ninku inuu guursan karo 4 dumar waa la fahmaya waxaan ka hadlay dhageysta si fiican ay dhageysta inuu ninku guursan karo 4 dumar okay baynama haweenta looma ogola ilaa hal nin
ilaa hal nin oo keliya ayaa loo ogoliyay marka maxaa faraqa keenay waxaa ku yidhi faraqaas shariicadda islaamku waxay u keentay inuu ninku guursan karo afarka dumarka liannahu ninku hadduu tan guursado caruur ka dhalo waa caruurtiisii hadduu taa kala guursadana uu caruur ka dhalo maxay noqonaysaa waa caruurtiisii isaga bimacnaa isagii baa wada dhalay afarta reer oona ilaahay baa siiyey inuu afartii guursado oo fooqa 7 samawaatin buu ku yidhi ilaa 4 dumaraad qabi kartaa oo ilaahay baa u banaaneeyey laakiin haweenta waxaa la yidhi mid ku koobnow leesh liannahu dabiicadda haweentu nin keliya unbay jeceshay lidaalika waxaad arkaysaa hadduu ninku tii labaad guursado tii labaad ayay hinaasideedu ka badan tahay ta hore xagga physiologiga marka la eego xagga nafta marka la baaro waxaad arkaysaa inay ta labaad hinaasteedu ka badan tahay ta hore kadaalika tii saddexaad hadduu keeno guursado waxaa dhacaysa hinaasideedu iyada ta saddexaadi inay ka badan tahay labadanba oo ninku markaasoo kale wuxuu gelayaa dawaamad dheer buu gelaya oo wuxuu gelayaa yani hinaas fوق الحد ayaa imanaysa marka dabiicadda haweentu waxay jeceshahay nin kaliya oo insaanka ilaahay wuxuu ku abuuray haweenta inay nin kaliya ku koobnaato kadalika wuxuu u sameeyaa arintaasi li'annahu wala maqlaybaan malaynayaa no voice wala soo qoray wala maqlaybaan malaynaya wuxuu u soo qoray ilaahay subhanahu wa ta'ala haweenta lafteeda iyada hal nin oo kaliya li'annahu sharafta haweenta ilaalinaya li'annahu haday zina gasho ama hadday fuxshi gasho ceebtu waxay ku noqonaysaa iyadii iyo ninkii qabay sooma hadday afar nin haweentaa wada qabaanna dee dhibaatadeedii bay leedahay caruurta keebaa loo nisbayaa baa imanaysa su-aasha imanaysa halkaasi waa kee caruurta yaa iska leh ma ninkii horaa iska leh mise kii labaad baa iska leh mise kii saddexaad baa iska leh qabsin baa dhacaya soo maaha ilay afar nin bay guursatay taasina shii khayaaliya maaha way dhacday oo waanu maqalnay haween 3 nin guursatay oo caruurtii la garan waayay cidda loo nisbaynayo yaa iskale caruurta ma ninkan mise ninka laakiin shariicaddu markay ninka ay siisay ay ku tiri 4 dumara leena way caddahay ninka wada dhalay ilaa isaga qaba 4 dumara maaha caruurtana isaga wada dhalay gidigood laakiin haweentii lama kala sooci karo caruurta ay dhashay keebaa loo nisbaynaya ma ninkan baa mise ninkii hore mise ninkii labaad waa la fahmaya marka iyadii markaan saa toos ugu jawaabay haweentii islaamka soo gashay nasaarada ahayd waxay tiri wallahi diinteenu waxaa ku jirta xikmad badan baa ku jirta waxaan ku leeyahay xikmadda inagu ma lihine ilaahay baa keenay oo ilaahay baa ina baray oo ilaahay baa soo dhaxligay diinta gudaheeda sidaynu inagu xikmadda u fahanno iyo maqsadku ilaahay arinta saa uga dhigay لأنه هذا الحكمة دي إلهي فهمتid waxaa dhacaysa inaad ku dhaqantid hadda wixii uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo dajiyay wala fahmaya marka mas'aladaas iyada ah aan anigu hadda sheegayay waxay ku saabsanayd marka labada qofi ninka iyo gabadhu hadday isnacib yihiin waxaa dhacaysa inay isdiidaan baa dhacaysa ama inay kala tagaan markaasoo kale shariicaddu waxay keentay furitaankii sidii macnaha mid walba oo dariiqiisa u maro ama jidkiisa iyo wadadiisa uu maro waa la fahmay marka mas'alada iyada ah marka inagu maanta walaalayaal waxaynu ka hadalnay masaa'isha waxaynu ka hadalnay ah furitaanka macnihiisa xagga luqadda iyo xagga shariicadda iyo waxaynu ka hadalnay kadalika waxaynu ka hadalnay cadaymayaashii inoo sheegayay furitaanku inuu yahay shay uu ilaahay uu inoo sharciyeeyey kitaabka iyo sunnada iyo waxaynu ka hadalnay kadalika xikmadda uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu furitaanka uu ka leeyahay markuu furitaanka uu soo dejiyey uu ummadiisa uu dhex dhigay xikmadda iyo maqsadka iyo danta uu ka lahaa ayaynu ka hadalnay marka saddexdaa mas'aladood baynu ka hadalnay oo ah furitaanka macnihiisa xagga luqadda iyo xagga shariicadda islaamka iyo waxaynu ka hadalnay xukunkiisa isaga furitaanka wuxuu xukunkiisa uu leeyahay ma xukunka uu qaadanayo iyo waxaynu ka hadalnay xikmadda uu ilaahay furitaanka u soo dejiyey kadibna waxaynu ka hadli doonaa hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo idmo casharka soo socda arkaanta furitaanka tiirka طبعا furitaanku wuxuu leeyahay tiirar ayuu leeyahay tiirarkii ayaynu geli doonaa hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu idmo intaas ayaynu macnaha casharkii maanta ayaynu kusoo koobaynaa waa 3 macnaha qodob 3dii qodobna waxa weeyaan معناها فريتانك حق اللغة حق الشريعة هي حكمة هي حكم كيسة واللي هي فريتانك أحكامتك وهرسان إسقى هي كذلك وحين كهذا الحكمة دا وإلهي كله فريتانك
marka dambana waxaynu ka hadli doonaa tiirarka uu leeyahay furitaanku. waxaan malinayaa waa la fahmay masaa-ishii maanta waa na la duubay kolleyna dee dabcan waa lagu soo celin doonaa markaasoo kalena dee si fiican baydin u fahmi doontaan hadduu ilaahay subxaanahu watacaala uu inoo idmo. halkaas ayaan kusoo koobayaa kitaabkii furitaanka ee maanta inoo bilaabmay hadduu ilaahay subxaanahu watacaala inoo idmo. kitaabka tafsiirkana waynu bilaabi doonaa goorta uu ilaahay subxaanahu watacaala uu inoo idmo inaynu bilowno ayaynu ku bilaabi doonaa isna saasoo kale un baydin ula socon doontaan labadii kitaab, kitaabka furitaanka ee fiqhiga ku saabsan iyo kitaabka macnaha tafsiirka oo aynu bilaabi doono tafsiira suurat albaqara. marka mayga ayaan walaalkeena weli uga degi doonaa hadduu ilaahay subxaanahu watacaala uu inoo idmo. إلا رسول الله إلا رسول الله إلا رسول الله. أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرب الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثبات. لا لن يضر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عالي الطبقات. يفدي النبي محمدا كل الورى هو مرسل الرحمن بالآيات. نحري بنحرك يا محمد إنني متلهف للقائكم بمماتي. عرضي بعرضك يا نبي مليكنا حان الوقوف لعرضكم بثباتي. حان الوقوف لعرضكم بثباتي. يا فرحة الدنيا المليئة حينما هل الحبيب وصاحب البركات. سقطت رماح الكفر عند قدومه واستبشرت في مجده أبياتي. فلربما غصن الأراك بلينه يثني المبارز يسقط الرايات. ولربما موت الكريم مخوف للقوم إثر وفاته بهباتي. للقوم إثر وفاته بهباتي. ومؤكد سب الرسول يزيدنا حبا له ولديننا بحياتي. هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة زادت فؤادي للنبي صلاتي. ومؤكد سب الرسول يزيدنا حبا له ولديننا بحياتي. هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة زادت فؤادي للنبي صلاتي. فستعلمون بأننا من أمة صلت على خير الأنام بصلاتي. فستعلمون